dhammaan waad salaamantiin ku soo dhawaada wax ka bara channel muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa sida loo ogaado haddii qofku xiiseynayo markaad online kula hadlayso. sideed ku ogaan kartaa inuu qof xiiseynayo la hadalkaaga markaad online kula hadlayso? dad badan ayaa isweydiiyay in qofka ay online kula sheekaysanayaan uu xiiseynayo la hadalkooda iyo in kale. calaamadaha muujiya xiisaha markaad qof online kula hadlayso. markaad qof aad u xiiseynayso waxaad shaki la'aan dooni doontaa inaad qofka wax badan la hadasho, balse iyadoo kuugu wacan tahay xishood ama sababo kale oo jira aawadood waxa laga yaabaa inaanad qofka u ogolaan inuu ogaado inaad xiiseynayso iyo in kale. iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana qayb ka mid ah maskaxdaada oo loo yaqaan subconscious mind ay kugu khayaantaa in adoo qoraya isla ereyadaad islahayd qor aad haddana ereyada u qorto si dhaadheer. tusaale ahaan, halkii qofku kaaga qori lahaa hellow caadi ah ayaa waxa uu ku qori doonaa hellow. tanna waxay ku tusaysaa in qofku aad ku xiiseynayo. arrintan cagsigeeda ama ka soo horjeedkeeduna sidoo kale waa run. haddii aanad qof xiiseynayn waxaad qofka u qori doontaa jawaabo aad u gaagaaban. waxaad bilaabi doontaa inaad isticmaasho haa iyo maya badan xaggii aad hadal iyo ereyo dhammaystiran u qori lahayd. haddii qofka aad la hadlaysaa uu la gargariiro hadalka markuu online wax kugu soo qorayo, tani waxay caddaynaysaa in qofka aad ugu muhiim tahay, isla markaana uu rabo inuu kelmad kasta u qoro si caqliyeysan oo uu ka fiirsaday. inta ugu badan programmada waqti xaadirkan lagu sheekaystaa waxay ku ogolaanayaan inaad ogaato in qofka wax kuu qoraya uu la gargariirayo hadalka iyo in kale adoo eegaya halka ay ku qoran tahay type ama typing, sida Muhammad is typing. haddii aad aragto arrintan oo dhowr jeer dhacaysa adigoon dhab ahaan ka helayn qofka wax message ama fariin ah, waxaad sheekada ku soo gabagabayn kartaa in qofka aad ugu muhiim tahay dhinaciisa. haddii aad aragto qofka oo kugu soo jawaabaya wax ka badan hal message ama fariin, taasina waa calaamad ku tusaysa in qofkaasi aad ku xiiseynayo. tusaale ahaan, haddii uu qof markuu soo wada diro fariimo sidan oo kale ah: assalaamu calaykum, i waran, see tahay, ma fiican tahay, xageed ka dhacday, waqti dheer kuma arag. haddii aad aragto fariimo noocan oo kale ah oo mar wada socda, waxaa suurtagal ah in qofkaasi aad ku xiiseynayo. sug wax yar ka hor intaanad bixin ee aanad arrintan isku dayin. waa inaad sidoo kale ogaataa xaqiiqdan. marka uu qof dareemayo farxad waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo kelmado dhaadheer sida hellow xataa isagoon ku xiiseynaynba. dhinaca kale, haddii qofku niyad jabsan yahay waxaa suurtagal ah inuu hadallada kuu soo koobo oo aanu kuu soo qorin kelmado badan xataa isagoo laga yaababa inuu ku xiiseynayo. si aad haddaba uga fogaato inaad qalad samayso, waa inaanad qofka ku qiimayn wada sheekaysi keliya oo aad yeelataan, balse waa inaad ku qiimaysaa go'aanna ku qaadataa wax ka badan hal kulan oo aad online ku kulanteen si aad u samayso go'aan sax ah oo ku tusaya in qofkaasi aad ku xiiseynayo iyo in kale. buugga sida saacad gudaheed loogu ogaado qofka ku jecel waa buug ay sii daayeen wax ka bara channel, kaasi oo ku baraya sida 100% loogu ogaado qofka ku jecel wax ka yar saacad gudaheed. haddii aanad ku ogaanba 5 daqiiqo ee ugu horeysa, booqo website-kan si aad u ogaato sida lagu helayo buuggan. sidoo kale waxaanu website-kan kuugu qori doonaa fiidiyowgan qaybtiisa hoose ee description-ka si aad u ogaato xog badan oo ku saabsan buuggan, ama daawo fiidiyowgan si aad u hesho xog badan oo ku saabsan buuggan. waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku caawiyey. haddii aad ka heshay like saar, haddii aad ku cusub tahay channelkan taabo subscribe, fikirkaagana noogu soo gudba qaybta commentiga. sidoo kalena halkan ka daawo muuqaaladii ugu dambeeyay. waa inoo kulankan kulankeena xigay insha Allah. nabaday.